haddii aad u isticmaasho caanaha iyo timirta sidaan kuu sharxi doono insha allahu waxaa ka heli doontaa 5 faa'iido oo aad ku anfici doon hadduu alla idmo. Si faa'iidooyinkaas aad u hesho waxaa qasab ah inaad fahamsan tahay oo aad taqaano qaabka saxda ah ee loo isticmaalo inta xabbe ee timir ee lagu daro caanaha, xilliga ugu fiican ee la isticmaalo, isticmaalka saacado ka hor waxa ay tahay inaad ku samayso timirta iyo caanaha, iyo inta galaas ee qasabka tahay inaad cabto maalin kasta si aad u hesho 5 faa'iido. waana wax aad dareemi karto muddo isbuuca gudaheed faa'iidadeeda insha Allah. balse waa haddii aad samaysan kuu sharxi doon insha Allah. marka si degan u dhageyso cashirka lana wadaag asxaabtaada si kula faa'iideystaan. magacaygu waa Dr. Cabdirasaaq. soo dhawaada mar kale. inta uu guda galin isticmaalka iyo qaabka loo isticmaalo iyo inta xabba laga isticmaalo iyo qaabka la iskugu daro iyo inta loo baahan yahay qofka maalin kasta inuu ka isticmaalo. marka hore aan sharaxno faa'iidooyinka laga helo. faa'iidada koowaad caanaha iyo timirta marka la isku daro waxay ziyaadiyaan ama kor u qaadaan awoodda muruqa. sida hortiina ka arkaysaan qofka markuu timirta oo caano ku darsado waxay ziyaadinaysaa muruqa awooddiisa ay ziyaadinaysaa. marka awoodda waxay noqon kartaa ama cuf ahaan ha noqoto oo muruq inuu weynaado ha noqoto, ama ha noqoto energy ahaan, energy level ka saarkaysa macna energy ahaan ha noqoto, labadaba oo qofka tamar badan iyo awood badan ayuu dareemayaa. oo taas waa qodob koowaad aad muhiim u tahay qofka. marka haddii aad dareemayso tabar darro iyo energy la'aan iyo ma aragtay in energy badan aadan haynin, timirta iyo caanaha marka isku darto waqti kooban gudaheed waxaad dareemaysaa energy badan, firfircooni badan iyo awood fara badan ayaa ku soo galaysa. waana sababta loo dhaho dadka gym-ka iyo waxyaabaha sameeyo timirta iyo caanaha isticmaalo. sababtana waxay tahay murqaha sa arkaysaan inay koraan ama ay weynaadaan ayay qayb muhiim ka qaataan, maadaama caanaha ay yihiin protein oo murqaha ka caawinayo inay weynaadaan. sidoo kale timirta ay tahay sugar ama sokor murqahan ay ka caawinaysa dhanka energy-ga, maadaama qofku markuu jimicsi badan sameeynayo energy badan oo isticmaalayo wuxuu u baahan yahay wax energy-gaas soo celiyo. marka caanaha timirta isku shiidata aad ay muhiim kugu yihiin. ama sida caadiga si guud qofka doo tabar darro iyo daal iyo naxuus inuu daciif yahay oo dareemaya jir ahaan timirta iyo ma aragta caanaha aad ay u anfacayaan. sidoo kale dadka ilgo badan wax yar markay ku dhacaan oo xanuunsadaba ishooda laga dareemayo oo ilgo waxaan bulshadana ay dhahda ayagana aad ay u anfacaysaa inay badsadaan oo ma aragta xaaladaas aad ay kaaga caawinaysa. waa muhiim. sidoo kale isla qodob koowaad saa arkaysaan xilliga soonka oo kale waxaa wanaagsan inaad isticmaasho waa energy qofka maalintii oo dhan oo dareemayo, maadaama qofka markuu soomayo tabar darro iyo caajis iyo daal fara badan oo dareemo maadaama cunto maalinta uusan cunaynin. xilliga suxuurta haddaa cabto caanihi timir isku daray sida la iskugu daray qaabka waa arki doonaa. haddii xilligaas suxuurta aad cabto sida arkaysaan hortiina wax badan ayay ka caawin doontaa oo energy badan iyo tamar fara badan ayaa dareemi doontaa insha Allah. faa'iidada labaad laga helo waxay tahay in loo isticmaali karo dhiig la'aanta, gaar ahaan marka ay yaraato macdanta nooca loo yaqaano ironta, oo aan ognahay inay muhiim u tahay gaarsiinta oksijiinka xubnaha kala duwan ee jirkeena, inay qayb muhiim ka qaadata ismaha hemoglobinta xambaaraysa oksijiinka si loo gaarsiiyo unugyada kala duwan ee jirkeena. marka haday dhiig la'aan ku hayso ama HB-gaada marka xarumo caafimaad aad tagto lagu sheego inuu yar yahay, waxaa wanaagsan inaad si aad u isticmaasho, kor ayay u soo qaadaysaa. arrinka marka aad ay muhiim ugu tahay oo blood flow iyo qulqulka dhiigga waxa dhanba kor ayay u kacayaan. qofkan saa ogtiin markay dhiig la'aan wax hayso xitaa maqaarkiisa waa laga garanaa. marka taasna macnaheedu waxay tahay oxygen fiican iyo perfusion fiican iyo dhiig fiican inuusan soo gaaraynin. marka haddii aad isticmaasho sida hortiina ka arkaysaan xitaa maqaarka qofka aad ayuu u ifayaa. marka labadan haddii maalin kasta isku darsato marka laga soo tago dhiig la'aanta maqaarkaada ayay ifinaysaa maadaama ironta ay ziyaadinayso. marka iyadana waa qodob kale oo muhiim ah, gaar ahaan timirta si gaar ah aad ayay saameyn ugu leedahay macdanta ironta oo waa laga helaa. faa'iidada saddexaad labada marka isku darsato waxay muhiim u tahay si guud shaqada maskaxda, gaar ahaan waxay si aad uga caawisaa si gaar ah memory-ga ama xasuusta iyo xifdinta iyo wax la mid ah. marka haddii aad rabto caafimaadka maskaxdaada inaad si aad sare ugu qaado, ku dadaal sida hortiina ka arkaysaa. sababtana waxay tahay vitamin B6 ayaa ka helaysaa. vitamin B6 kana saa ognahay wuxuu sare u qaadaa si guud caafimaadka iyo shaqada maskaxda. si gaar ahna waxaa si aad ay muhiim ugu tahay labada markaas ku darsato
يعني ميموريgaada ama xasuustaada ama xifdintaada ama keedinta macluumaadka maskaxda yani aad ay muhiim ugu tahay marka iyadana waa arin kale oo muhiim ah faa'iidada afraad ee laga helo marka isku darto waxa waaye in caafimaadka lafaha iyo kala goysida ay sare u qaadaan hadii lafa xanuun aad dareemayso ama kala goysida xanuun iyo wax la mid ah ka dareemayso aad ay muhiim kugu yihiin inaad isticmaasho يعني والله بدنا أسكو درس تقابل سكو در وارك دونا سيد هرتينا كاركيسان عفمات كلا فاي كلا جوسيد آدي مهم ويهين شن فائدة شن هذا واحد هاي والله جهلو تمرت يما ركت عانه ممكن سكو درو إن يعني الرجع يسين يسو أو الديرات إن حق جوشة ما دام أن أجنه هي إنرجي فرب بدن قف كينو استعمال عيو مركو سمينا قلمي واحد مده marka energy fara badan ayay siinaysaa jirka iyo murqaha marka hadii marka yani galma ama jamaac sameynaysa aad dareemaysay tabardaro iyo daal iyo wax la mid ah galmada kadib hadii aad badsato waxaad dareemaysaa energy fara badan yani aad u badan iyo awood fara badan ayaad dareemaysaa maadaama murqihii wixii dhan iyo jirka ay caawinayso marka waa muhiim oo caafimaadka xag gogosha marka laga hadlayo aad ay muhiim u tahay hadii aad tahay dadka daalka iyo tabardarada faraha badan la dareemo markuu galmi wax la mid ah يعني هو السماية مركا إذا مهمة يا وطاي مركا شنطة فائدة يا أمي مثل فائدين كلا جهلو مركا السكودرة عانها يتمرتا مركا سيد السكودرة سيد هورتينا كأركيسان وحاول أكسن إن حل جهبينك يقفك يعني هالجلاس أما لبق جلاس عانا بورها واقف في عين واستعمالي كرتا عانا الله السدوك الوا استعمالي كرتا مركا عانها يا وحا كدريسا سد حبه ilaa 5 xabad timir ayaa ku daraysaa caanahan waa inay noqdaan caano diiran waa inay noqdaan marka habeenkii ayaa sida sameynaysaa meel ayaa la dhigaysaa subax ayaa cabaysaa ayagoo isku dhalaalay macnaha subax ayaa cabaysaa waan sida ugu fiican marka loo barbar dhigo inuu qofka makiinada iyo wax la mid ah ku shiido waxa aad u wanaagsan in xilliga habeenkii caano yacni diiran oo biyo diiran lagu daro macnaha caano qandacoo diiran in timirta 3 xabo ilaa 5 xabo macnaha inta galaas isticmaal ay ku xiranta hada 2 galaas wax la mid isticmaal ilaa 6 xabo waa gaarsiin karta hada hal galaas wax la mid isticmaal 3 xabo timir ayaa ka dhigan karta marka 3 xabo timir waxa ku dhex daraysaa yani caanihi oo diiran oo biyo diiran ah yani ayaa ku dhex daraysaa meel ayaa la dhigaysaa subax marka soo toosto ayaa ku bilaabanaysaa oo waa cabaysaa subax kasta sidaas ayaa sameynaysaa subax ayaa fiican adoo calooshaada maran tahay inaa cabta ayaa fiican waa energy aad muhiim u ah shaqooyin kala duwan aan soo sheegnay ayaan ku qabanayno waxaan ugu muhiimsan hadaa tahay dadka daalka iyo energy la'aanta iyo caajiska iyo dareemo qof active ayay ka dhigayaan hadii jimmy wax la mid ah qaatana aad ay muhiim kugu yihiin oo borderkan iyo waxyaabaha isticmaalayso ayaga kaaga fiican caafimaad ahaan marka caanaha marka hore waa inay diirnaadaan oo macnaha xogaa qanda ahaadaan lambar 1 lambar 2 laba galaas wax la mid ah 3 galaas ama hal galaas wax la mid waa inay ahaadaan galaaskii 3 xabad timir camal wax la mid ah ku darto waa sida hortiin ka arkaysaan habeenkii waa inaa meel la dhigtaa subaxii aa cabtaa marka sidaas ayaa samayn kartaa caano lo'na way noqon karaan caano boorahna way noqon karaan yani caano wanaagsan markaas wadanka aad joogto as leedahay way wanaagsan yihiin yani ayaa isticmaalaysa ilaan wadan kastaba caano booraha caanayaal kala duwan ayaa laga isticmaalaa marka midkaas leedahay aad uu tayo fiican yahay ayaa isticmaalaysaa qaabkaas ayaa isticmaalaysaa xilligaas ayaa isticmaalaysaa caanahana waa diirinaysaa markii aan fahanteen ayaa rajaynayaa faa'iidooyin kala duwan ee laga helo timirta caanaha marka la isku daro sida la isku daro qaabka loo sameeyo hadii aad rabtana makiinada ku shiidi kartaa laakiin waxa fiican oo aad u fiican in si dabiici ah isku dhalaalaan halka adiga qasb lahayd koronti waxa uu adeegsan lahayd waxa fiican in si dabiici ah ayaga isku dhalaalaan faa'iidooyinkana qaarkood sida energy iyo tamarta iyo si degdeg ah u dareemaysaa muddo kooban gudaheed macnaha energy badan ku soo galay aad dhididayso jirka dhan يعني أدريمس في الفرعوني فربضان عاجز كذا إنه جريه هاي تمرت هذه إنه بدن تاعي أدريمسها ممكن أفهم تاعي رجعنا وعي سؤاله قيد فرض منكم تبينه وريبه السلام عليكم